بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Dr. Jaamac Abdi Jaamac halkan waxaan tusaale yar ku bixin doonaa sida ugu haboon ee gacmaha loo dhaqan karo xilligan aynu ku jirno xanuunka viruska COVID-19 uu ku faafayo adduunka oo dhan oo dawadiisa koowaad ama ka hortagiisa koowaad uu noqday gacmaha oo la dhaqo marka collection step baa la maraa shanta step waxay noqonayaan in marka ugu horeysa uu qofku ku shubto Dettol ama kulba wixii uu helayo kadib uu gacmaha baabacada si fiican ugu dhaqo kadib baabacada dhexda uu si fiican u nadiifiyo labada gacmoodba kadib uu labada farood is dhex galiyo kadibna uu labada farood dhexda hadana kaga imaado gacmaha ugu dambeyn intuu mar kale sida uu kalin garayo labada suulna aanu ilaawin labada suul waa muhiim waxaana looga wada jeedaa waxoodaba inaan wax virus ama wax bacteria aan ku harin gacmaha dhexdooda marka shanta step ayaa u ah hoggaan in qofku gacmihiisa si fiican u dhaqi karo oo kana ilaalin karo viruska wasalaamati